halkan waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynaha aragtida Soomaalida ee Heritage oo saddexdii bari u dambeysay ka socday magaalada Tangarow. Arrimo ku saabsan doorashooyinka, amniga iyo sidoo kale siyaasadda ayaa looga hadlay. Warmutiyada ayaana laga soo saaray waxaana uu shirka ama madasha dadka ka soo qayb galay ay ku baaqeen in ay madaxda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyadu gaadhaan heshiis isla markaasna hirgeliyaan waxyaabihii ay hore ugu heshiiyeen sida uu SBC u sheegay agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi. waxaa la isku afkartay kow in amniga iyo federaalka inuu shaqeeyo iyo dastuurka inuu dhammaystiro iyo doorasho qof iyo cod inay dhacdo inay kulligood u dabran yihiin ama u dabranaan karaan siyaasadda. haddii siyaasaddu ay hore u socotana waxaasoo dhan waa la xalliyi karaa ama waa la dhaqaajin karaa. haddii siyaasadda la isku diidan yahayna waxaasoo dhan way xanibnaanayaan. guud ahaan hadda waxaa la yidhi tan ugu daran oo taagan waa doorashada. doorashada waxaa la yidhi Sebtembar 17 heshiiskii la gaaray beys ha noqdo waxa ka dhiman oo wixii ama Jubbaland tabanaysa oo Puntland tabanayaan ama waxa mucaaradku ka tabanayaan kuwa heshiiyey hal iska afkarto oo hal xalliyo. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha maxaa la Galmudug Qoorqoor labadaas nin baa yiri anaga hawsha galayna. marka waxa dhahan meel fiican waa noo maraysa odayaashii waxaan isa soo dhaweynay. marka guud ahaan waana la xog wareystay waana la dhab hadlay. maxaa la yiraahdaa laba odayna waxay dhaheen hawsha anaga ku maqaneen hanala soo duceeyo ducana waa la faray xog la'aanna ma jirto waana la isqalbi wareystay. dad baa waxay u arkayeen in shirka kaliya khudbadii hore loo jeediyay dib loogu celiyay oo madaxdu halka iska weerartay arrinta maxaa kaga jawaabaysaa? horta aan wada hadalno waa heshiino in qalbiga waxa ku jira la cadeeyana daawo ku jirta. marka runtii dasuuq ku soo dhamaadeen waa u jeeday sida la isku buurtay sawir markii la iska qaadayay la isku rabay. qof kastana waa garaabhayay qof kastana wuxuu u sheeganayo de waa sababeynayay. mustaqbalkii meesha ku qoraa 2025 lagama waa laga hadlay waxaa la yidhi tagto hanoo joogto timaadana ha dambayse taagan ha laga hadlo. taaganna waa laga hadlay kuwaan hadda khubara ka hadlay oo amniga waa laga hadlay aad bal isaga wareysay warbixin baa laga keenay. dastuurka gudoomiyihii guddiga dastuurka hadlay wasiirkii maxaa la dastuurka hadlay. marka waa laga hadlay laakiin howluhu waa kala xiisab badan yihiin waana kala taagan yihiin. arrin doorashadu arrin taagan siyaasiyiintu musharaxiinta inay hadlaan oo hadalka jeegsadaan oo nin walba qartiisa naqshado waa wixii looguba yeeray. inkastoo dooda la galay si toos ah oo wajiga khudbadihii la isu marin jiray warbaahintana meeshan laga yiri ma muuqato xal rasmi ah oo dhinacyada kala taagan ee siyaasadda ay gaadheen. maxamed Saal SBC Garow.